waxaa maanta cabasho xoogan golaha wakiilada iyo sidoo kale madaxtooyada la hortegay ehelka iyo qaraabada uu ka soo jeedo sheekh aadan cabdi warsame aadan sunne sheekhanoo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xidhnaa qaar ka mid a xabsiyada ku yaala somalilan waxaana haweenkani madaxweynaha somalilan ugu baaqeen mudane muuse biix cabdi inuu sida ugu dhaqsaha badan leh xorriyadiisi dib ugu soo celiyo sheekhani waxaanay sidoo kale sheegeen in madaxweynaha somalilan hore cafis ugu fidiyey balse aan ilaa haatan la sii daynin haweenkani ayaa waxaa ka mid ah hooyadayadu dhashay sheekh aadan cabdi warsame aadan sunne waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xaqdaraa ku dhacday kitaab jaamacaa la wada mariyey waxba waa lagu waayey niman maanta dan kala leh ayaa haysta waxa weeyaan taas way dhammaatay nin la dhaariyey oo la xidho lamaba arag waxa weeyaan waxa dhacday in cafisaad fidisay oonu kaa sugayno cid warqadii noo soo qaadaan weynoon madaxtooyada hor nimid oonu muuse baryaynay oonu leenay madaxweyne maanta muusow waanu kuu nimi oon muusow waxaanu leenay muraad culus muusow waxaanu nahay maatidu ka baktiyaysay ee maanta 2 sano iyo dheeraadka caruur ragaan xadhig aan kasbanin ay ku jiraan waxaanu doonaynaa maanta wixii ka dambeeya inaad cid kasta u soo dhiibo muuse waanad ka noqonin madax meel ka sareeyo la taabtaa ma jiro waxa weeyaan adiga u sareeya adaa madaxweynihiiya adiga alla kugu guuleeyay way ka horeeyeen xadhigoodu ragga maanta waxaan doonaynaa inaad afiskii aad fidisay nin walba adaa ka sareeya hadduu mid cad yahay iyo hadduu mid madow yahay baa adaa ka sareeya magacii kaa soo baxay iyuu ceeb ku raacinine annana maalin walba annaan baca taagnaanine wuu ku soo gaadhaya codka iyagu waa lagu tusaaye raggaa warqadooda jeelka keen waxa weeye madaxweyne dad mubaadiliin aanu nahay adaanu ku dooranay dalku laba madaxweyne male muuse bixiya wadunba ka madaxweyne dadka cafiskaynimada ku mudiciga waxa weeye adiga ka sareeya adaa madaxweynihii dalka waxaan leeyahay dalkan loo soo dagaalamay ee curada loo dilay ee dad u curyaameen muuse bixiya wanagu dad maanta caqladaynayna ma nihin waxa weeye calankii shalay loo dhintay lagu dhibaatoobay calankii shalay loo dhintay dhidibka loo taagay dhalinyaradii loo soo dhintay dhaxalka loo reebay ayagoon dhibaataynin oo calanka dheeliga u diiday hadduu dhuuni qaatuhu dhibuu jeel ku wada dhoobo sow dhibtaan diidayniyo dheeli iman maayo haddaan nahay xaafadda axmed dhagax culimadeedii waxaa lagu xidhxidhay xaqdarro dembina iyagoon lagu haysan ayaa niman qarad ku lihi yidhaahdeen qaraarkayga noogu xukuma cadaaladaan helina ma jiro garsooraan helina ma jirto xeeraalin wanaagsan helin ma jirto xaqdarro cadaan ayaana lagu xukumay ilaa maalintii la xukumayna saasaan u taaganahay maanta ku 2 jeer baan madaxtooyada horteeda istaagnay xataa wax naloo qabta daa madaxtooyada horteeda maantana lagu laayay madaxtooyada horteedii ayaa maanta annagoo dhibban maantana lagu laayay oo dadkayga dhibbayiin oo culimada xidhxidhantay ayaa maanta naloo dalbaday maxaan ku dhihi boolis naloo dalbaday oo hortaadii maantana lagu laayay madaxweyne adiga oo madaxweyne ah oo adduunyada maxay haytooyeen dalka Soomaaliland haysta ayaa saacad reerka u ka maarbahaynin dadka caruurta yar yar ee maatida ay abayaashood xoogooda u garaacayeen ee xaqdarrada lagu soo ururiyay ee lagu soo xidhay ee waliba lagu xukumay ayaan ka gubanaa madaxweyne xaqna waxaan u leenahay wixii dhibaanu qabnay inaanu ku sheegano dadkii calanka u dhashay baan nahay dadkii ciida u dhashay baan nahay dadkii kula dhintay ee kula noolaa ee dhib iyo dheef kula wadaagay baan nahay waxaan leeyahay Muuse haliyeeyo halgankii xornimadow hoygii aqoontow hogaankii dalkaygo himiladii aqoontow in raac la sheegiyo hal jilay cumaadalan waxa tahay nin haariya hamigiisu dheer yahay hadafkiisu meel yahay hayeeshee haliyeeyo gobolkayga hawdiyo haybtana ka sii qabo sidaan kuugu hawlgalay igumaad hambaynine hoosiiska naga qaad oo rogan meesha lagu helay hore noogu soo daa marcali ducaale Umar Shabash iyo Mustafa Abwaanka telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada